عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. waxaan cashirkan uu ka mid yahay casharadii Revit 2017 waxaanu isku ogeyn inaynu arki doono AI render aynu geysan karno koorsadeeni maxaan aynu wadnay ama renderka aynu ka sameynay koorsadii Revit 2017 ama Revit for beginners. Okay, waxaad ogtahay in aynu laba sawir aynu render ka soo qaadnay projectigeena aynu ku save garaysanay sidoo kale iyagoo sawir ahaan aynu soo save garaysanay oo mid ahaa kan inoo furmay hadda oo midna ahaa kii kale dhinaca kale view-ga kale ka haysanay tusaale ahaan xaflaya inuu kan ahaa. Okay, kan marka labada sawir aynu isku day doonaa bal inaan AI render hadii macquul noqoto inaynu geyno AI render kaas oo tusaale ahaan qurxin iyo wax ku darsan kara. Marka tusaale ahaan waxaan ku qori doonaa for example render AI. Okay, render AI waxaa yaqaanaan gali doonaa kabacdi renderai.com markuu soo baxo website kooga sii gal. marka website kan waa lacag oo price marka maalintii wuxuu ku siin doonaa maalin walba wuxuu ku siin doonaa 3 chance oo sawir aad ku render gareyn karto oo maxaan credit haddii aad lacag ku gadanayso tusaale pricing intaad gasho yaad maxaan wixii ka rab iyo waxaas oo dhanba aad fiirin kartaa. tusaale ahaan except waxaan iska dhig waxaad aragtaa iminka sawirkan markaynu soo galaynay qaabku kan weeye sida laga dhigay pricing iga check gare. marka inagu waxaas oo dhan ma socono sign in with Google baan samayn doonaa Google account-kayga inaan ku sign in gareeyo. Okay, then tusaale ahaan kabacdi tusaale ahaan in aan ku qoro gmail-kayga password-kiisii wixii adiga laftaada qor gmail-kaaga. then website-ka markii aad gasho yani qaab aad iska diiwaan geliso maalin walba inta aan isaan filayo maalin walba waxa laga yaabaa inuu ku siiyo credit free plan. marka waa kan steps kala maray wax kala tamaahan waa dhowr step ugu horeeya in shaqada guda galno upload aan dhaho file-ka aad render gareynayso soo upload gareey buu leeyahay. tusaale ahaan bal aan tago waxa loo yaqaano xagii sawirku wixii yaalay xagan new Revit course waxaan rabaa in ka render to ay ku qoran tahay inaan isaga wax yani lay render gareeyo. then waxaan dooran doonaa xarabtaa guri caadiya for example single home. then maxaa ka sii rabtaa inaad nooca rabto tusaale ahaan ka wada light-kan iska doorano mid iska dooro sawiradan yani. then waxaad xagan time-ka rabto ku leeyahay tusaale ahaan sunset ka dhigo. Okay, winter for example spring-gigaas oo kale aan ka dhigo sky-ga kaas iska dhigo confirm landscape-ka cagaar iyo waxyaabahaas aan ka dhigo tusaale ahaan. Okay, architectural maxaa rabtaa color-kii waxaan jeedaa yani material-ka isticmaalaysid tusaale ahaan gypsum iyo waxyaabahaas. marka gypsum-tii waxaan filayaa in uu siin doono isla wixii maxaan dhahay noogu shubnaa kalaradan inuu iyagoo noo qurxiyo. tusaale ahaan bal wuxuu ina siiyaan eegno result-iga aynu sugno xogaa heer result-iga ina siiyo ayaanu eegi doonaa. haddii aynu ku guulaysano oo inoo soo saaro sawir qurux badan aynu save garaysanaa then project-yadeena yani inaan dadka kula share garayno ahaan baan isticmaali karnaa. marka dhowr sawir aan ku sameeyay cajiib uu ka soo saaray ahayd course waxaa jirtay Revit ah oo aan ka duubnay waxaan dhahay waxa loo yaqaano tusaale ahaan masha Allah you see wixii aan sameynay project-geeni waxaad aragtaa in sawirka quruxda badan leh laga soo saaray aad iyo aadna quruxda badan leh. tusaale ahaan haddaan furaan dhaho tusaale ahaan double click dhaho aan ku furo right click. Okay, print fast. Okay, wixii aan sameynay baad aragtaa in yani masha Allah wax walba sidana loo qurxiyo aragtaa xagan inaga lafteena kaas oo kale isticmaali karin Revit-ku ku jiray xagan intii yareedan qurxinay sida inooga dhigo waad aragtaa. tusaale ahaan kaas waa ka hadii bal imika soo qaad imikaas wuxuu ahaa
xogaa yar sunset iyo waxbuha ay hadii aan wax ka bedel ku dhaho isla kan una sawirka saddexaad laba credit ka maadaama laba yahay dhig saddexaad waxaan ka dhigi doonaa ku kaleeto tusaale ahaan aan ka dhigno maalin Sleek International ama noocyadan oo kale ay then for example sunset ka aan bedelo on maalin ID ka dhiga inta kalena wax walba sidiisii guda regenerate